muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaynu dul istaagi doonaa sheekada guusha hantiilaha ugu qanisan dunida magaciisu waa Cabdiraxmaan Maxamed halkanina waa Faatix Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaal aan uga hadli doono sheekada guusha Elon Musk Elon Musk wuxuu dhashay 28 Juun 1971 waana ganacsade weyn wuxuu aasaasay shirkado badan oo waaweyn waxaana kamid ah SpaceX iyo shirkadda Tesla sidoo kale wuxuu aasaasay Neuralink iyo OpenAI iyadoo lagu qiyaasay shirkadahaasi hanti dhan 224 bilyan laga soo bilaabo Febraayo 2022 Musk qofka uu qanisan adduunka Musk waxa dhalay hooyo Kanadiyaan ah iyo aabba Koonfur Afrikaan ah wuxuuna ku koray Pretoria Koonfur Afrika wuxuu si kooban u dhiganayay jaamacadda Pretoria kahor inta uusan u guurin Canada da'da 17 sano sanadkii 1995 Musk iyo wiilalkiisii waxay aasaaseen shirkad software yar oo game ah oo lagu magacaabo Zip2 oo ay markii dambe lacag ka heleen bilowga waxaa la wareegtay kambaniga sameeyeen oo lagu magacaabay Zip2 kambani lagu magacaabo Comeback iyadoo ku iibsatay 307 milyan sanadkii 1999 isla sanadkaas Musk wuxuu aasaasay bangiga internetka ee x.com loo yaqaanay kaasoo ku biiray Confinity 2000 si uu u sameeyo Bible shirkadda waxa iibsatay eBay 2002 waxayna ku iibsatay lacag gaaraysa 1.5 bilyan oo dollar sanadkii 2002 Musk waxa uu aasaasay SpaceX soo saaraha hawada sare iyo shirkadda adeegyada gaadiidka hawada kaas oo uu ka yahay maamulaha guud iyo injineer sare SpaceX tuuritaankeedii ugu horeeyay ee gantaalkii lagu magacaabi jiray Falcon 1 sanadkii 2006 inkasta oo gantaalku uu ku guuldaraystay inuu gaaro wareegga dhulka haddana waxaa la siiyay qandaraas barnaamijka adeegyada gaadiidka orbital ee ganacsiga ee NASA dabayaaqadii sanadkaas 2004 wuxuu ku biiray shirkadda baabuurta korontada ku shaqeysa ee Tesla 2006 wuxuu gacan ka geystay abuurista Solar City shirkad adeegyada tamarta oo markii dambe la wareegtay Tesla oo noqday Tesla Energy sanadkii 2015 wuxuu aasaasay OpenAI shirkad cilmi baaris oo aan faa'iido doon ahayn 2016 wuxuu aasaasay shirkad lagu magacaabo Neuralink oo ah shirkad diiradda saaraysa horumarinta isku xirnaanta kombiyuutarka iyo maskaxda Musk ayaa sidoo kale lagu dhaleeceeyay faafinta macluumaadka khaldan oo ku saabsan masiibada COVID-19 iyo aragtidiisa kale 2017 Musk wuxuu ka iibsaday x.com ee Bible qadar aan la shaacin isagoo sharaxaya inay leedahay qiimo dareen ah SpaceX waxay isku dayday tuuristeedii ugu horeysay ee kantaalada 2018 SpaceX waxay soo bandhigtay Falcon Heavy daahfurka waxa uu qaaday Musk Tesla Roadster shakhsi ahaan culays lacag bixin ah 2017 SpaceX waxay soo bandhigtay jiilka soo socda ee gawaarida iyo nidaamka hawada sare Big Falcon rocket taageeri doona dhammaan awoodaha bixinta adeega SpaceX sanadkii 2018 SpaceX waxay ku dhawaaqday qorshe la qorsheeyay 2023 howlgalka wareegga dayaxa duulimaad gaar ah oo loo yaqaan sanadkii 2020 SpaceX waxay bilowday duulimaadkeedii ugu horeeyay Dima 2 SpaceX waxay bilowday horumarinta kooxda Starlink ee 2015 si ay u bixiso helitaanka internetka oo leh haddii nooc ugu horeeyay ee dayax gacmeed ayaa la bilaabay Febraayo 2018 intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkeena maanta fadlan haddii uu qanciyay muuqaalku ha ilaawin inaad like saarto kuna soo biirto kanaalka
haddii aadan weli ku soo biirin lana soco muuqaaladii u dambeeyay.